uqaasha madax dhaqameedka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta beesha Yoon Ismaaciil oo ka soo jeeda wasiirka cusub ee diinta iyo waqaafta Somaliland oo ka mid ah wasiirada uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jaraa'id ku qabtay degmada Ceelafeen ee galbeedka gobolka Sanaag waxayna taageero ugu muujiyeen wasiirka diinta iyo waqaafta Somaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Muuse oo loo garanayo yahay Albani dhanka kale waxay uqaashan iyo madax dhaqameedkani u mahad celiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxayna sheegeen inuu yahay shakhsi ku habboon jagadaas ugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland وهنبليو وزير الشيخ عبد الرزاق حسين علي موسى iyo mahadnaq aan uga mahadnaqayno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi magacaabistiisa runtii waa aqoon-yahan ku baax dheer waliba aqoonta diinta islaamka ka adag xilka madaxweynuhu u magacaabay waxaan ugu duceynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in xilka loo magacaabay uu wadadeeda ugu saxsan garansiiyo oo fududeeyo oo ku hago oo u toosiyo sidoo kale waxaan u duceynayaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynahana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku fududeeyo gudashada xilka ummadda aad u hayso dhamaanteedba iyo dalka waxaan u tahniyadeynaynaa oo si karaamo iyo sharaf iyo mug iyo miisaan leh u soo dhaweynaynaa Sheekh Albani oo runtii masabka maanta loo magacaabay aan filayno ku rajo weynahay inuu xilkaa ka soo bixi doono ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu xilkaa ku astiro madaxweynahana waxaan kelmadda dardaaranka aan isagana u diraya waxay tahay beeshu waxa weeyaan in badan qalinku ma qorayn maanta mar haddii wasiir buuxa uu reerku helay waxa weeyaan halkaa waxaad moodaa in ay meeshu ku habboonayd xilalka kale hadda bannaan ee hadday agaasimo tahay iyo hadday tahay soo guuxaya waxaanu jecel lahay bacdama in badan aanu anagu saaxadda ka maqnayn in aanu tabasho badan in badan jirtay waxaanu jecel lahay kuwaana inaanu ku soo baxno ugu horreyn inaanu u hambalyeeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah hoggaanka jamhuuriyadda Somaliland oo runtii maanta xushay shakhsi ama wasiir ku habboon halka lala doonayo wasiirkaas oo ah Cabdirasaaq Xuseen Cali Muuse ninka maqasheen Albani waxay la tahay jamhuuriyadda Somaliland loo sharaxi maayo waxaanuna leenahay oo ku faanaynaa haddaanu anagu qoyska nahay waxa nin isfaansho wariis lugtay aanu leenahay oo aad aanu adkaynaynaa inuu yahay shakhsigii nagaga habboonaa halka inuu yahay noogu habboonaa ama jamhuuriyadda Somaliland oo dhan ugu habboonaa inuu madaxweynuhu maanta doortay waxaanu madaxweyne leenahay sida aad Cabdirasaaq u xulatay kuwa kale aad xilalka u dhiidaysana madaxweyne u xulo baan ku leeyahay sheekha waxba aanu ku sheegi maayo Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Xuseen Cali Muuse waayo de kitaabka lagu magacaabo kutubta waaweyn kamida diintana Ilaahay wuxuu yiri ha ka biqina diintu sida ay tahay wada reer u shaqay ku oran mayno qabyaalad ku shaqay ku oran mayno ummadu way ku simantahay iyo xafladda tan waxaanu u qabanay salaan guud inaanu u diro madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta soo magacaabay Sheekh Albani oo ka tirsan reerka kan waanu ugu hambalyeynaa sheekha waxba la fari maayo dawaan cilmi iyo culum bay Ilaahay siiyay waxaanu ku boorinaynaa cadaaladda inuu ku sugnaado oo Ilaahay daawalba waafajiyay hambalyada iyo nabad baaqaasanu ma soo jeedinaynay waxaan u hambalyeynaa oo maanta xafladan isugu soo baxnay Sheekh Cabdirasaaq Albani oo loo magacaabay wasiirka diinta iyo waqaafta madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isku shaadhayntii uu sameeyay runtii aad iyo aad baan u hambalyeynaa intii waan malaynayaa xukuumadda kulmiyay jirtay ama kala dambeysayba waa markii koobaad annagoo wasiirro hore lahaan jirnay waa markii koobaad oo wasiir aan magacawdo runtii waanu ku hambalyeynaa Cabdirasaaqna waxaanu leenahay diinta iyo waqaafta haddii lagu magacaabay position aad iyo aad u muhiima kan ka hambalyeynayaa wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Cabdirasaaq Sheekh Xuseen Sheekh Cali Muuse waxaa leenahay ilaahay xilkaa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ku magacaabay ilaahay ku fududeeyo waxaan rajaynaynaa inaad noqon doonto
wasiirkii wasaaradda diinta ee diinta daryeelkeeda iyo waxqabadkeeda kor u qaadi lahaa. waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee xilkaa kuu magacaabay, isagana waxaan leenahay waad ku mahadsan tahay. waxaan uga dirayaa salaan runtii aada u qaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi xildiid. waxaan kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee sheekh albani. runtii haddii la yidhahdo cid baa la magacaabay ama boos baa loo magacaabay, waxay ku fiican tahay qofka u munaasibka ah ee qaranka iyo qoyska uu ka dhashayba wax u qaban karaa. waxaan filayaa qarankaa loo magacaabay, qoyskana waxa wax u qaban karaa waxa weeye inaan la dhaliilin. cabduljaam maxamed, laanta afka Soomaaliga, CBA, koonfurta degmada Ceelfayn.